waxaa 24 saacadood la soo dhaafay warbaahintaasi Kenya ay daabacaysay saraakiil ka tirsan ciidamada booliiska Kenya oo lagu dilay weerar ay soo qaaday kooxda Al-Shabaab xarun ku taala tuulada Wangaarley. Wararka ayaa waxay intaasi ku darayeen in laba qof oo kale ay ku geeriyoodeen weerarkaasi sidoo kalena cunug yarna dhaawac ka soo gaadhay. Saraakiisha ciidamada waxay warbaahinta maxalliga u sheegeen labada qof ee dhintay saraakiisha booliiska ay kamid ahaayeen kooxdii weerarkaasi soo qaaday. Xarunta ay la wareegeen ay ku taale xadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya. Mid ka mid ah saraakiisha ammaanka ismaamulka Madero la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay isku ceebayeen kooxdii weerarkan soo qaaday walow sanaanu wax faahfaahin dheeraad ah ka bixin weerarkaasi. Dhinaca kalena kooxda Al-Shabaab ayaa waxay sheegtay mas'uuliyadii wixii ka dhacay tuulada Wangaarley balse war ka duwan midkii saraakiisha ammaanka Madero ayay ku soo qoreen warbaahinta afkooda ku hadasha. Waxna ay sheegeen inay 3 saraakiil ah oo Kenyan ah ay ku dileen weerarkaasi sidoo kalena dagaalyahanadooda ay qabsadeen oo goobtii weerarku ka dhacay. Xamse Dabare, Star TV.